xaalkiisu sida uu yahay waxa ka jira warka Soomaaliland kulli sheegashada ay maamulka Soomaaliland ay sheeganayaan arintaas waxa ka jirto anagii baa hadlayna dagaal waanu saxan insha Allah uu dhow yahay muuqdaa waa maqlashay ra'iisul wasaarahood maanta uu markuu hadlayo lahaa hadaa saxiix waayo aan waxta carruurta saxiix doonto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميرك سعدون كجوكتان لما وحق سلامتين صلاة إسلامك طبعا ولي ما إذا أركين أنا وحلي جنب مقال صديق ياه آدي أبني كره اللي قلنا يا ومثل قلنا مقال دولا لكن لو أرموه إيجابي أو مضلنا إن اللي يسوق بيو وأتشبه برشة الصومال لا لاقي بصله إن لو سوق بيو أيان أركي سيدا صندي ترى مقالكم سمي arrinka koowaad waxa weeye nin baraha bulshada la soo galiyay waa la dilay oo Bakti Madoobe la yiraahdo oo ay bulshadu taqaan Cabdi Madoobe oo reer la sacaanooda oo soo hadlay iyo hadalkiisa oo laba eray ka oranayo ayaa waxa weeye qodobka koowaad ka dhigaya iyo qolada beenaalayaasha ay suxufiyiinta ee reer Soomaaliland yiraahdo wax baan u soo gudbinaa oo aan halkan waxa weeye dhowr eray ka oranayo dantooda arrinka labaadan ka hadlaya waa Muuse Bixi oo hadlay oo maanta wax yaab la ku hadlay oo halka idin soo dhigi doono oo aabal bulshada inta iga aqal inta maartay iga cilmiga badan ee social media ku jirta wala Facebook iyo YouTube ka aan bal doonaya inay commentiga ay bal waxa weeye ay igu fasiraan aan akhriyo commentiga waa waxa weeye qodbadii caawa Muuse Bixi way ugu horeyn bal Cabdi Madoobe hadlaayay la daawado le waa noolahay iyo waxa ka jira warka Soomaaliland kulli sheegashada ay maamulka Soomaaliland ay sheeganayaan arintaas waxa ka jirto anagii baa hadlayna bal mar kale waxaad ila daawataan isagii oo leh hadda weeraraya Soomaaliland deynmayo nabad qaadan maayo bal ila daawada waxa weeye anagu meel allaale meesha uu joogo ama meel allaale waxa uu la yimaado diyaar baaruna cidii soo raacdaana de way ku lugaysaa laakiin waxaanu leenahay dadkan shacabka ee xoolo dhaqatada ee waxa weeye waxa weeye culayskan aan qaadi karin jirno ka tanazuli mayna dagaalkaana joogsan maayo waan u sheegaynaa dagaalka aan kula jirno ina biixi joogsan maayo in aad daawateen baa rajaynaya labada arrin ay soo qaaday midna xurkiisu waa noolaanshihiisa midna nuxurkiisu waa inuu waxa weeye ninka sheeko kala wado oo uu leeyahay wax nabada qaadan maayo deegaamada reer Sheekh Saxaaq waa weeraraya deegaamada Soomaaliland waa weeraraya ciidanka SSB ee GT86 iyo soo kala hadda ciidanka qaranka iyaguna jooga waxa weeye qorluud waa weeraraya uu leeyahay Muuse Bixi baanay u shaqeeyaan isagoo waxyaabo noocaas ka hadlay qodob dib aan dhiganay qodobkan ku horeynaya qodobka noolaanshihiisa ku horeynaya horta ninkan cidda micna u sameynaysa ee inuu nool yahay iyo inuu dhintay iyo meesha uu jiro buunbuunaysa waxa weeye waa Soomaaliland intan sugaha hadda intan waxa weeye waliba youtuberada reer Sheekh Saxaaq badan ayaa buunbuuninaya oo waliba reer Sheekh Saxaaq iskuma jiraan xisbiga kulmiyeenta taageerta ah ayaa buunbuuninaysa oo tiri oo la uu dhintay waxyaabaha saxaafadda Soomaaliland ka caaganaan jirtay kulmiye koor waxa kamid ah ee suxufiyiinta maartay reer Soomaaliland beenaalayaal noqdaan balse hadda wada beenaalayaal bay noqdeenba ma garanayo waxa laga faa'iidayo nin dilkaaga qorsheynaya oo waxa weeye ciidan soo urursanaya oo shaxdii u dhigaya oo doonaya inuu ku soo weeraro waxa weeye walaalka dilo soo deegaamada soo weeraro dhulka ku socdo waxaad u oranayso uu dhintay miyaad la shaqeynaysaa ma dadkaad u hadoodinaysaa maxay tahay nin hadda wuxuu ku leeyahay nabad qaadan maayo waa soo weeraraya deegaankooda bal ka war haddii aad adigoo suxufiya oo loogu talag oo hawshaadu ay ahayd inaad dadkaaga baraarujiso oo aad tira shirqoolada iyo cadowga idinku soo socda ka diyaar garooba haddaad tira cadowgaygu waa dhintay hadda waa la dilay waa mootan yahay qabriguu galay ilaahay baa ku dhaman casnimo ka xubaa jirta waxa weeye suxufiyiinta reer Soomaaliland ee ninka buunbuuninaya waxaan leeyahay nacasnimada joojiya ninkana aan wax yar idin yara qeexo horta ninkan aan laba eray idin ka yar dhaahdo ninkan Soomaaliland ninka soo saaray ma aha balse wuxuu kamid yahay wixii meesha ka dagaalamayay Soomaaliland cidda soo saaritaankeeda ugu weyn gobolka bariga Sool cidda ka qayb qaadatay waa dadkii Soomaaliland oo ay ku tacabtay
waa dadkii koorasyada Itoobiya loo diri jiray ee meelaha loo diri jiray ee dhulbahantaa waliba ahaa ee Soomaaliland ku tacabtay weeye ee taliyayaal ku xigeenkii lahaa ee ciidankii militariga boqolkii sarkaal u sareeyay inta sarkaal ay tagay dabagala cidda horta Soomaaliland la dagaalantay waa cidda wadadkana way caawinayeen bilaayadan kale ee wax isku soo gurmadiyo wixii kale waxa weeye waxa iyagu hor kacayay waa iyaga ciidanka Soomaaliland shakhsi to shakhsi u wada yaqaanay oo ay isku meel ka dagaalamayeen waxa weeye qarankooda difaacayeen cilmigan iyo waxa weeye cududan iyo sarkaalnimadana ay ku heleen qarannimadeena Soomaaliland ninkan intii Soomaaliland ay joogtay gobolka Sool waxa uu isaguna joogay meel la yiraahdo Buuhoodle 20 sano 20 sano dhowr iyo 10 sano halkaas ka fadhii jiray ciidamada yar bukalba muuqaal ka soo duubi jiray sawirka Maxamed Kaahin iyo sawirka Muuse Biixi iyo sawirka Siilaanyo qaadi jiray ku shishbartu oran jiray qori uu degta u saari jiray sawirka Muuse Biixi isha ka toogto oran jiray sawirka Muuse Biixi toogtoogan jiray meelaha marka ninkan shaqayro noocaas iska hayn jiray hadii uu isagu awood leeyahay ama libintan asiinaysan uu isagu leeyahay waxa uu uga soo saari waayay intii hore Soomaaliland gobolka Sool Soomaaliland wuxuu bariga Sool uga soo saari waayay intii hore ee uu markii Soomaaliland wixii isku wada dhaceen meesha waalatay uu soo dhaxaray horta taasa waxay ku cadeynaysaa in aanu ninkani wax weyn ku ahayn meesha ka ahayn sidoo kale mid ay idin sheegaya maanta today cidda waxa weeye cidda maanta ciidanka Soomaaliland hor fadhiya ee khaatumo lagu sheegayo cidda haysata waa saraakiisha Soomaaliland sarkaalka u sareeyay ka ku xigeenku waa isla iyagii waa ciidankii Soomaaliland gobolka soo joogay Cabdi Madoobe waxa isaga noqday Buuhoodliis isaga noqday hadda Buuhoodliis ka jooga waxana kama aha sarkaal ku xigeen ma aha sarkaalka u sareeya ma aha waxa meesha kama aha halkiisu iskaga noqday laakiin ninkani uu ka duwan yahay marka la ka hadli doonaa nimanka uu ka yeeri duwan yahay dabeecad ahaan buu ka duwan yahay ujeedada hadalkiisa marka aad aragto ka duwan yahay waa nin ka yara duwan uu ka duwan yahay kuwan kale meesha jooga horta intaas baan ka oranayaa ninka waxa weeye hadlayay soo kala baaq gooni u diraya cidda ay hadda soo fadhiyaan inay ka diyaar garoobaan ninkaasi waxa weeye weerar buu soo yahay qorilugud go'aandhaale waxa weeye galgala waxaas oo dhan in laga diyaar garoobo waqti kasta duulimaadkiisaasi waa idin soo gali karaan soo kale saan hore idin sheegay tuulo kasto qashar keenana hal la ogaado ciidankuna waxa weeye ka war hayaan arrinka u taag lahada ninkaas wuxuu wax nabada qaadan mayno waayahay taasi waa halka bal waxaad la daawataa ninkii Muuse Biixi waanu saxan insha Allah uu dhow yahay muuqdaa waa maqlays ra'iisul wasaarahood maanta uu markuu hadda ayuu lahaa haddaan saxiix waayo aan wax xitaa carruurta saxiix doonto marnaba ka harmeen biyaal waxa idin ka codsanayaa dadka aragtida dheerow bal inaad hadalka ay soo fasirtaan madaxweynaha uu yiri ilaa hadda waa fahmi waayay bal soo fasira saaxiibayaal aad iyo aad u mahadsantiin